laamaha ammaanka ee dalka Uganda ayaa waxaa la sheegay in feejignaan buuxda la geliyay kadib markii xogo sirdoon oo ay heshay dowladda Uganda ay muujinayaan inay suurtagal tahay in Al-Shabaab ay si dhuumaaleysi ay ku galaan gudaha dalkaas isla markaana ay weerar ay ka geystaan. goobaha muhiimka ah ayaa lagu soo waramayaa ee dalka Uganda in la dhigay ciidamo dheeraad ah oo sugaya ammaanka. arrintan ayaa waxa ay la xiriirtaa feejignaan iyo waliba in la xaqiijiyo ammaanka kadib markii la sheegay in dagaalyahano hubeysan oo ka tirsan Al-Shabaab ay soo gudbeen ama ka soo gudbeen xuduudda Soomaaliya isla markaana ay dalalka dariska ah ay galeen. waxaa dowladda Uganda ay ka cabsi qabtaa weerar la mid ah kii 2010 ka dhacay gudaha dalka Uganda kaasi oo la sheegay inay geysteen Al-Shabaab. waxaana arrintan la sheegay waa arrinta dhinaca ammaanka ee loo adkeynayo dalka Uganda ay la xiriirtaa cabsi laga qabo weerar Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha dalkaas si aysan qalqal oo aysan ku gelin ciyaaraha koobka adduunka. waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in ay baaritaano lagu bilaabay gaadiidka xamuulka iyo waliba dadka soo galaya ama ka soo galaya xuduudaha dalka Uganda uu la leeyahay dalalka dariska. kulamo siyaasadeed ayaa ka socda magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud iyadoo oo wafdigii dowladda ee halkaasi tagana ay kulamo ay la leeyihiin madaxa xukuumadda ee Galmudug. wararkii ugu dambeeyay iyo wafdiga shalay tagay halkaasi waxyaabihii ay kala kulmeen Xuseen Axmed Maxamuud Washington ayaa soo jeedinay. magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa xalay waxaa ka dhacay kulamo gooni ah u dhaxeeyay madaxda sare dowlad goboleedka Galmudug iyo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya iyadoona kulamadaas ay ahaayeen kuwo xasaasi ah. kulankii ugu horeeyay ee xalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu dhaxeeyay madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo madaxa xukuumadda Galmudug iyo mas'uuliyiin ka socota xukuumadda Soomaaliya oo halkaas shalay gaaray. intaas kadib ayaa waxaa isla xalay magaaladaas kulan kale ku yeeshay madaxweynaha Galmudug iyo madaxa xukuumadda iyo wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye kaas oo shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Dhuusamareeb. kulamadan ayaa waxaa looga arinsanayaa xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dowlad goboleedka Galmudug iyo arrimaha doorashada ee la filay halkaas inay ka dhacdo. madaxda sare ee Galmudug ayaa waxa ay dowladda Soomaaliya ku qancinaysaa in ay dhacdo 4 bisha soo socota doorashada madaxweynaha Galmudug iyo tan baarlamaanka. ha yeeshee madaxda ku sugan Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa ka biyadiidan arrintaas iyadoona muddo kororsi ay sameynayaan. sidoo kale kulamadan ayaa waxaa looga arinsanayaa sidii xal waara loogu gaari lahaa khilaafka u dhaxeeya madaxda sare Galmudug ee haatan kala degan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado. waxaana la filayaa in maalmaha soo socda ama saacadaha soo socda kulamadaas is-afgarad laga gaaro. warar hoose oo la helayo ayaa waxay sheegayaan in madaxda sare Galmudug uu wasiirka arrimaha gudaha ku qanciyay in ay tanaasul sameeyaan. ha yeeshee wararkaas si rasmi ah looma xaqiijin karo waxaana warar kala duwan ay ka soo baxayaan kulamadii xalay dhexmaray wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa xukuumadda Galmudug. xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dhanka maamulka Galmudug ayaa waxa ay haatan maraysaa heerkii ugu sareeyay waxaana muddooyinkii dambe taagnaa khilaaf xooggan oo u dhaxeeyay madaxda sare Galmudug kuwaas oo haatan kala degan magaalooyinka Cadaado iyo Dhuusamareeb. faahfaahin ayaa ka soo baxaya dagaal beeleed ka dhacay deegaano hoostaga degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan. wararka la helayo ayaa sheegay in dagaal beeleed khasaare badan dhaliyay uu ka dhacay halkaasi. dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay sheegeen in dagaal beeleedkan uu bilowday kadib markii mid ka mid ah labada maleeshiyood ee dagaalamaya middood la sheegay in weerar ay ku qaadeen gaadiid xamuul ah oo marayay halka dagaalku uu ka dhacay kadibna dagaalku sidaasi uu ku qarxay. marka ayaa waxa ay sheegayaan in xaaladdu haatan ay tahay mid aan la isku haleyn karin isla markaana dagaalkii dhacay ay ku dhinteen ku dhawaad 9 ruux oo dhinacyada dagaalamay ah. dagaalada u dhaxeeya labada maleeshiyo beeleed ayaa dhowr jeer waxa ay ka dhaceen halkaas waxaana halka lagu dagaalamay oo ah magaalada Matabaan ay u jirtaa 60 kiiloomitir. dhinaca kalena maamulka gobolka Hiiraan ayaa la sheegay inay ku baxeen arrintan si xal looga gaaro oo dagaal beeleedaas loo joojiyo.
ciidamo booliis oo ka socda dalka Uganda ayaa soo gaaraya magaalada Muqdisho sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Ahmed Daaqal Usmaan Alf. saraakiil iyo ciidan booliis oo tiradoodu ay dhan tahay 160 askari ayaa la filayaa inay Uganda u soo dirto Soomaaliya dabayaaqada bisha soo socota ee July. ciidamadaas waxaa loo tababarayay howlaha nabad ilaalinta muddo hal sano taasoo bilowday bishii Juun 19 ee sanadkii hore waxaana la soo gabagabeyn doonaa Brito ee bishii Juun ay tahay 23. tababarkaas waxay ku qaateen dugsiga tababarka booliiska ee Kabaaliyo oo ku yaala degmada Masende ee gobolka ama galbeedka dalkaasi. taliye xigeenka booliiska Uganda General Sabneti Museya oo shalay la hadlay ciidankaasi waxa uu ku booriyay inay muujiyaan asluub wanaag muddada ay howlgalku ay u joogaan Soomaaliya. dhinaca kale ciidamada booliiska ee loo soo dirayo Soomaaliya waxaa la sheegay in laga qaaday imtixaano kala duwan oo ay ka mid ahaayeen darawalnimo, qorista warbixinada, maareynta amarka iyo howlgallada. ciidamada booliiska Uganda ee loo soo dirayo Soomaaliya ayaa waxay qayb ka noqon doonaan howlgalka AMISOM iyagoo booliiska Soomaaliya wada shaqeyn kala yeelan doonaan maareynta soo celinta amarka, howlgallada, baaritaano iyo adeegyada badbaadinta daba madaxda sarsare ee muhiimka u ah. ma aha markii ugu horeysay oo ay dowladda Uganda ciidamo booliis ay u soo diraan Soomaaliya waxayna booliiskii ugu horeeyay ee soo direen sanadkii 2012. xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa maanta kulan waxa ay ku yeelanayaan xaruntooda magaalada Muqdisho. kulanka xildhibaanada ayaa waxa uu yahay kulan ay uga hadlayaan sharciyo muhiim ah iyadoo oo xildhibaanada kulamadii ugu dambeeyay ay yeelanayeen ay baaqanayeen. maanta oo ay taariikhdu tahay 22 bisha 6 2019 waxaa kulanka caadiga ahaa ee goluhu ay ku yeelanayaan xaruntooda Muqdisho. waxa ay ka doodi doonaan xildhibaanadu oo codeynta hindisa sharciyeedka dhismaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa. sharciga guddigaas lagu dhisayo ayaa waqti dheer waxa uu horyeelay golaha shacabka iyagoo uu soo mariyay akhrinta koowaad, labaad iyo tan saddexaad waxaana la filayaa inay maanta ay cod u qaadaan si ay sharcigaasi u noqdo mid ansax ah ama dib loogu celiyo wasaaradda ay qusayso ee soo diyaarisay. xildhibaanada golaha shacabka ee Soomaaliya waxaa kulankii ugu dambeeyay ee ay yeesheen isniintii lasoo dhaafay digniino loogu diray xildhibaanada waxaana lagu wargeliyay inay soo xaadiraan kulamada isla markaana aan la aqbali doonin in kulan kasta oo golaha shacabka uu leeyahay aan u baaqan kooram la'aan. si taas looga gudbana waxa uu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka ee Soomaaliya in lala xisaabtamayo xildhibaanka isla markaana loo gudbinayo deegaanada waa dadka uu matalo la ogeysiinayo inta kulan ee xildhibaanku uu ka soo xaadiray fadhiyada baarlamaanka. halka warkaas waxna moodan kaga imaanayo waa idaacadda dalsan ee magaalada Muqdisho. markaana wararka dibadda. qandaraaslayaal Mareykan ah ayaa laga daadgureynayaa saldhig ku yaala dalka Ciraaq. militariga Mareykanka ee jooga dalka Ciraaq ayaa la sheegay inay qorsheynayaan inay daadgureeyaan boqolaal qandaraaslayaal ammaanka ee ku sugan saldhigga militariga ay ku leeyihiin bartamaha dalkaasi. ilo military oo ka tirsan dalka Ciraaq ayaa ku waramay in qandaraaslayaasha laga wada saari doono saldhigga ciidanka cirka ee ku yaala magaalada Balad ee gobolka Salaaxudiin ee sababo la xiriira xaaladahooda ammaanka. qandaraaslaha ka socda shirkadda Lockheed ayaa waxaa la filayaa in laga daadgureeyo ama lagu daadgureeyo diyaarado ay leeyihiin militariga Mareykanka mana kala cadaba leeyahay dalka ay u duuli doonaan. saldhigga ciidanka cirka ee Balad oo 80 kilomitir dhanka waqooyi kaga toosan waxa uu kaga toosan yahay magaalada Baghdad ee dalka Ciraaq waxaana ay isbuucii hore la beegsaday baa leeyahay 3 xoobiye kuwaasi oo la sheegay inaysan wax khasaare aysan geysan. ugu dambeyntiina dibadbaxayaal Falastiiniyiin ayaa lagu dhaawacay bariga marinka Gaza. ugu yaraan 81 Falastiiniyiin ah ayaa la sheegay in shalay galab lagu dhaawacay iska horimaad ay la galeen ciidanka Israa'iil ee ku sugan bariga marinka Gaza kuna dhow xuduudda dalka Israa'iil.
afhayeenka wasaaradda caafimaadka ee Gaza Ashraf Al-Qaydra ayaa waxa uu suxufiyiinta u sheegay in 79 dibadbaxayaal ah iyo 2 ka tirsanaa shaqaalaha caafimaadka dhaawac ay ka soo gaareen rasaastaasi. warbaahinta maxalliga iyo waliba goobjoogayaal ayaa sheegay in dibadbaxayaashu ay isku dhaceen askar Israa'iiliyiin oo ku sugan inta u dhaxaysa xuduudda bariga marinka Gaza ee Israa'iil. dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ku wada urureen baaleeri meel ku dhow xuduudda iyagoo wata calanka Falastiin kuna dhawaaqaya erayo ka dhan ah Israa'iil, waxaana ay dhagxaan ay ku tuurayeen ama ku weerarayeen askarta Israa'iil iyagoo ka soo jawaabay baaleeri sunta dadka ka ilmaysiisa rasaas nool iyo waliba kuwa injir ah. warkii subaxnimo idinkaga